Wacan oo wanaagsan daawade. Waxaan kuu soo gudbin doonaa qaybtii labaad ee musalsalkeena nolosha maroodiga ee saxaraha Namib. Maroodigii yaraa wuxuu soo baraarugay waqti ay tahay casir leec. Clarissa ayaa aqoonsatay in uu maqan yahay maroodigii yaraa. Maroodiga waxay isku dayayaan in ay ishelaan ayagoo adeegsanayo foolkooda dheer, kuwaasoo zaa'id xasaasi u ah. Waxaa bilowday xilligii kulaylaha, taasi oo keentay in ay dhirtii oo dhan ay la'daan. Shimbiraha raqa ku ducaysto ayaa bilaabay in ay feejignaadaan si ay u cunaan nooleyaasha u dhinto kulaylka xad-dhaafka ah iyo abaarta ah. Clarissa iyo qoyskeeda waxay yimaadeen geed qalalay, taasi oo keentay in ay cunaan si ay uga baxaan xilliga abaaraha. Maroodiga waxa uu saxaroodaa in ka badan 40% daaqa uu cuno. Digada maroodiga waxaa la socdo miraha, taasi oo keento in ay miraha ka soo baxaan meelo kale. Waxay sidoo kale mirahaasi cunno u yihiin shimbiraha loo yaqaano guinea fowl. Sidoo kalena waxay risqi u tahay daanyeerta xilliga abaaraha ee la waayo wax kale oo raashin ah. Maroodigii da'da ahaa ee Wantask waxa uu ku soo baxay laan geed ah oo qalashay, laakiin waa uu awoodi waayay. Ilkihiisa ayaa daatay, mana awoodi karo inuu cuno geedaha adag. Clarissa iyo qoyskooda noloshii ayaa ku cakirantay, sababtuna waa in dhexbartamaha looga jiro xilligii jiilaalka, taasi oo ku khasabtay in ay socdaan si ay u helaan dhul biyo iyo baad leh. Qoysas kale oo maroodiyaal ah ayaa ku soo biiray safarka Clarissa, laakiin Clarissa waa mid aqoon u leh dhulalka ay ku dambeeyaan baadka iyo biyaha. Nooleyaasha oo dhan waa kuwa ka howleelayo dooxada Huwani si ay u helaan dhul baad iyo biyo leh. Xitaa waxaa meesha iskaga tegayo dabacada. Maroodigii da'da ahaa ee Wantask waxa uu soo gaaray maalmihii ugu dambeeyay ee noloshiisa. Waxa kaliya ee ka badbaadin karo abaartan zaa'idka ah waa roob. Clarissa iyo qoyskeeda waa kuwa baadgoobayo dhul baad iyo biyo leh. Clarissa iyo qoyskeeda waxaa la soo gudboonaaday daal zaa'id ah, laakiin badbaadadood ayaa ku jirto in ay hore u socdaan. Qorax dhaca marka ay tahay ayay yimaadeen meel ay ku kaydsan yihiin biyo
taasi oo ah sirta nolosha saxaraha Namib. Maroodiyadii ayaa bilaabeen inay dushooda biyo ku shubaan si ay u qaboojiyaan heerkulka jirkooda. Maroodiyaasha waaweyn waxay ku qasban yihiin in ay 100 litir oo biyo cabaan maalin kastaba si ay u noolaadaan. Sidoo kale waxay ku daboolayaan jirkooda ciidda si ay gaashaan ugu noqoto qorraxda. Dawacadii ayaa ugu dambeyntii gaartay xeebta. Dabacooyinkii ayaa waxay ku soo kordhageen rakhda libaax badeedka. Saxaraha dhexdiisa waxaa laga helaa meel ay biyaha ku kaydsan yihiin. biyahaasna waxaa ku soo arooro nooleyaasha kala duwan sida libaaxyada oo kale. Libaaxyadan ayaa waxay ku agnool yihiin meelaha u dhow kaydka webiga si ay u ugaarsadaan nooleyaasha u soo arooro. Libaaxyadan waa kuwo dif iyo naadir ah, taasi oo keentay in cilmi baarayaasha ay qoortooda ku xiraan saacado, taasi oo ay kula socon karaan xaaladda caafimaad iyo dhaqdhaqaaqa libaaxyadan. Libaaxyadan waa kuwo feejigan, sababtuna waa in ay yimaadeen raxan ka mid ah dayrta ku nool saxaraha Namib. 10 beri oo socod ah kadib, noolihii ugu horeeyay ayaa u soo arooray kaydkan biyaha. Libaaxyadii ayaa waxaa u suurta gashay in ay ugaarsadaan mid ka mid ah dayrtii. dayrtaasoo ay daciifisay abaarta ka taagan saxaraha Namib. Clarissa iyo qoyskeeda waxay gaareen dhul daaq leh, taasina waxaa sabab u ah aqoonta ay u leedahay dooxada Huani. Dabeel wadato neecaw ayaa ka timid dhankaas iyo xeebta, taasi oo ay kaliya fahmi karaan nooleyaasha khibradda iyo waayo aragnimada u leh sida Clarissa oo kale. Clarissa waa mid aqoon u leh ififaaladaasi, taasi oo keentay in ay ka durugto dooxa si aysan u qaadin biyaha. Roob weyn ayaa da'ay, taasi oo keentay in ay biyaha ay gaaraan ilaa iyo badweynta Atlantic. Dhibcihii roobka waxay mar kale ruuxda nolosha ku afuufeen geedihii qalalay, taasi oo keentay in ay dib u cagaartaan oo ay nolosha ku soo laabato. Sidoo kale waxaa soo laabtay nooleyaashii ka hayaamay dooxada Huani jiidaalka awgeed. Laakiin maroodigii da'da ahaa ee waantaas, roobkii ayaa ka soo daahay, waxa uuna u geeriyooday baahi. Inta aysan roobka imaan, dabacooyinkii ayaa waxay heleen rakhdiisii. Clarissa waa mid dib uga soo laabatay dooxadii Huani oo ay abaar darteed uga hayaameen. Taasina waxaa sabab u ah aqoonta iyo khibradda Clarissa ay u leedahay dooxada Huani.